بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جودهان ومد الصوماليات ميلو باجوكتان halkani waa barahan ku leenahay YouTube-keena Facebook-keena iyo sidoo kale barteena TikTok ee qaranka TV Media haddii aad ku cusub tahay follow iyo subscribe si aad u hesho macluumaadka falaqaynta iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee dalkeena hooyo iyo guud ahaan caalamka oo mararka qaarkood aan wararka ka jira idiin gudbi doono daawadayaal saaxiibayaal inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta dagaal kharaar ayaa waxa uu ka dhacay gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanada la yiraahdo Laandheer iyo Hulkujir waxaana dagaalamay beelo walaalo ah kuwaas oo ka soo kala jeeda degmooyinka Xiraale iyo Cabudwaaq beelahaas ayaa ku abtirsada beelaha reer diini iyo Surre daawadayaal saaxiibayaal inta aynu ku guda jirno falaqaytan waxaan rabnaa inaan ku xusno oo ama aan su'aal galino su'aal dadka Soomaalida ka guuxaysa maxaa marka Xasan Sheekh dagaalkan horta waxa ka dhashay dhimasho fara badan iyo dhaawac badan sida la soo warinayo Ilaahay ha u naxariisto intii dhimatay inta dhaawacaana Rabbi ha u boogadhayo maxaa marka Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweyne dalkan ka noqdo Soomaaliyeed maxay colaada iyo dirirta sokeeye ee Soomaalida u dhaxaysa ay u tira beeshaa oo dalku gees ka gees dab uga qiiqaya dagaaladaas oo aan kala qaadayno ilaa iyo laba nooc inuu dhacayaan ama ilaa saddex nooc dagaal ku salaysan dhul la kala riixanayo iyo mid ku salaysan dakano ama aane qof micnaha la dilay oo deetana dagaalka uu daba socdo iyo mid ku salaysan dagaal siyaasadeed intaba daawadayaal daliil ayaanu idin soo gudbin doonaa iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo mar allaala markuu wadanka uu qabto xaaladdu ay xumaanayso fariinta waxaan rabnaa inaad dhanka hoose fikirkaaga noogu dhiibtid muuqaalka noogu reebtid muuqaalkana aad dhamaysatid haddii Allah wadada raali ka ahaado waxaan idin soo qaadayaa inta hadda aan xasuusto kaliya idin soo qaadayaa qaybo kamid ah dagaalada dalka ka dhacaya labadaas sano ee uu joogo Xasan Sheekh May 15keedii bay uga ekeed laba sano dagaalada dalkan ka dhacay Soomaaliya khaasatan sanadkan cusub kaliya inta ka dhacaya baa haddana idin sii sheegi doonaa dagaal kharaar ayaa waxa ay dhex mareen kuwa horta kuwa siyaasadeedsan ay ahayd dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay gadaal ka riixayso waxa xusi doonaa kuwana waa dagaal u dhacay siyaabo kale oo qabali ah markii meel uu dagaal ka dhaco kulay laba duulmooda khaldanaa karaan qolaa kulay khaladka bilowday qoladii kalena khaladkiiba kaga daba dayatay halkaas ka soconaysa qolaa laga yaabaa inay nin disho ku horeyso kadib halka in dekanada ama aanada halka ka socoto dagaal ay isu bedesho ama qolaa laga yaabaa inay damacdo inay qolo kale Soomaaliyeed ku sigato waxa leenahay marka dadka Soomaaliyeed horta barnaamijka joojiya dad walaalaha ayaynu nahay ina hadda dhamayno macna badan noo sheegi mayso iyadoo dalkanaga iyo dadkanaga duulaan lagu yahay dadka wali waxaan leeyahay gardarada wada qolo kasto gardaro wada dagaalada meelaha ka dhacaya anuu si u dhacayaan ma ogi qolo kasto laakiin gardaro wada waa inay joojisaa dulmiga iyo gardarada qolo rabto inay qolo kale deegaan ka qaado ama qolo dilka iyadu bilowday fadlan joojiya dulmiga dagaalada daawadayaal bilahan dhacay Galgaduud iyo Mudug aan ka bilaabo gobolka Mudug khaasatan galbeedka gobolka Mudug shaqaaqooyin adag iyo dagaalo ayaa sanadkan ilaa sanadkii la soo dhaafay dabiiqadiisii waxa uu dhaxeeyay beelaha la kala yiraahdo Saad oo dhinaca iyo beelaha afarta muumin aadan iyo adeerkood Maalismoge oo ayaguna dhinaca galbeedka gobolka Mudug dagaaladaas dad badan ay noloshooda galaafteen dagaalka waa dagaalkaas ama degmooyinka Galdogob iyo Hobyo ayuu u dhaxeeyay dagaal kale waxa uu ka dhex qarxay Galgaduud oo dagaalo wajiye badan leh mar waxa haysta Eli iyo sidoo kale reer Xaaji Saleebaan qayb kamid ah ayaa haysta oo isdilaya dhinaca waxa isdilaya nimanka la yiraahdo Wagardhac iyo Saleebaan haddana Wagardhac iyo Saad inkastoo gaado ay u badan tahay ama muxuu dooxatoys dhinaca kale waxa isdilaya Mareexaanka Balanballe iyo sidoo kale nimanka la yiraahdo ama reer Balanballe iyo reer Gurceel jifooyinka halkaas gaar ahaan niman reer Warsamaamiya la dhahaa iyo reer ayaalaha qaybo kamid ah ayaa iyagu isdilaya dagaalkaasna halkaas ka socdaa dagaal kale haddana wuxuu ka socdaa meesha la yiraahdo oo waxa weeyaan waa dhacdooyin macnaha raadadkooda sii qoyihiin waxa ka shaqeynayo dagaalo kale oo u dhaxeeya
qabiilo ku abtirsada xawaale iyo abgaal ayaa in dhawaala dhacayay kanooyin dhul la isku haysto dilal shabeellada dhexe iyo hiiraan ayaa dhacayay isku dhacyo haddana dhinac kale waxaa ka jiray murursada iyo xawaale ah haddana waxaa ka jiray dhinac kale isku dhacyo u dhaxaysa beelo ku abtirsada xawaale iyo beelo ku abtirsada habargedir khaasatan cayr oo iyaguna isku dhacyo u dhexmaray inta xasan sheekh maxamuud uu joogay oo dad ay ku dhinteen inkastoo tan hadda muxuu ahaa hiiraan iyo galguduud aad moodid hadda in la xakameeyey shabeellada dhexe iyo hiiraan hadda ayay taagan tahay weli oo maalmahan ayadoo loo fadhiyey shir nabadayn ayaa haddana dhacdooyin jidad la isku galayo iyo islayn ay ka dhacaysay shabeellada dhexe gudihiisa beelweynta abgaal ayaa iyaguna gudahooda islaynayay in dhawaalaba labadaas sano xasan sheekh joogay dagaalo badan ayaa dhacay dad ehela ay isku ugaarsanayeen dekanooyin ah dagaalo sirfayn ah oo saf ballaaran ah macallimiin dugsiyo quraan lagu laayay arday lagu laayay maxas lagu laayay deegaan lagu kala gubay ayaa iyaguna dhacay xaggaasa u sii soconaynaa ninkastoo wax badan waan la isku dayay dagaalada shabeellada dhexe in la hor istaago weli haddana waxa weeyaan waxbaa laga baqbaqayaa ilaahay kala qabajiyaan leenahay dhammaan dagaalada socda shabeellada hoose u gudbaynaa dhinac waxaa iska dilaya beelo ku kala abtirsada garre iyo jiida cali ayaa isdilayay waayadan qoryoole iyo waa dhaweyto ereyadeeda waxa ka dhacay waa la ogaa dhinacna waxaa iska dilayay niman la yiraahdo jambaluul iyo irdho dhanka shanta caleemood iyo walaweyn halkaa marka la aado haddana waxaa ishaya gaal jecel iyo nimanka la yiraahdo shanta caleemood ama hubeer ayaa isdilayay oo colaado soo noqnoqday oo yaaq bari weyn iyo mataqaanaa ilaa saameyn ku yeeshay walaweyn iyo ayaa soconayay waayadanba inkastoo hadda xoogaa ay xaaladdu degan tahay kasii soco baay iyo bakool aad ceel barde dagaalaa ku soo noqnoqday diinsoor waxa weeyaan ereyadeeda dagaallo u dhexeeya dabare iyo geeladle ayaa ka dhacay dhinacan kale oo mataqaanaa meesha la yidhaahdo buur hakabo iyaguna dagaalaa ka dhacay oo waxa weeyaan dhowr jeer soo noqnoqday intaas waa qaybo ka mid a waxyaabo waxaa jira marka beelo hadda waxaa jirta mudug oo kale beelo majeerteen gudahooda waxaa jira macnaha xurgufiye waxa ay dhex marmareen oo dagaalo iyo yaryar laakiin waa la joojiyey oo hadda adduunka oo kale xoogaa dhacdooyin baa ka dhacay laakiin wax badan ma ahayn waa la xakameeyey oo dad jifo hoosaadiya hoosa isku gaargaarsiiyey dhanka waqooyi hadda u gudubno dhinac waxaa iska dilaya dagaalka siyaasadeed inta aan la gaarin beelaha habar jecle iyo dhulbahante beelo ku kala abtirsada ayaa isdilaya dagaalka siyaasadeed halka dhig kii khaatumay u dhaxeeyay Soomaaliland haddana waxaa isdilaya beelo habar yoonis iyo ku kala abtirsada habar jeclo waa dhanka sanaag iyo halka okay halka markay taagan tahay weli waxaan ku jirno waa dagaaladii muxuu ahaa sokeeye deegaano qarna hoostaga sheerbi inay ahayd baan jeclahay dagaalo sokeeya ka dhacay iyaguna oo beelo majeerteena u dhaxeeyay halka markay taagan tahay ilaahay ummadda Soomaaliyeed dhamahan kala qabajaan leenahay ka kaalay marka inta waa dagaal qabiilada intaan xusin iga raali ahaado goobaha qaarkood waxa laga yaabaa qabiilada ku diray inaanan garanayn magacyadooda ama waaba garanayaaba laakiin markaas aanan la sheegin macnaha xogta qabiiladaas deetana لأجل إن أسوق الدواعي بورها كوكل هذا محسن عيل بردو كلام محسن بيرها سكدي ليه دقال الله السياسة بقادنا مركو الدولة الصومالية كل جيالتي أما كو إسقاط وقرحي وتبشون يسيدوا كلا وحيابا لك اللي ترسني يحكم لسربي اللي سكو مقولي أو سكو خصبو أو الديدي برنامج سياسة سوكو هيا أما مد سياسة الدولة الصومالية دقال السياسة أيها وحي كدعين مدحوين حاس الشيخ محمد مركا maxaa ka khaldan madaxweynaha markuu imaado maxay Soomaaliya afarta gees u qiiqdaa su'aasha waa soo wadnaa dadka Soomaaliyeed oo dad walaalaha oo hal isir ah oo dad wada dhashay ah oo been inta badan la faafiyay baa jirta laakiin dad wada dhashay waxay isku leeyahay waliba marka madaxweyne xasan sheekh imaado maxaa la soo baabaya fadlan muuqaalka ana sii share gareysay su'aashan nooga soo jawaabtid baa jecelnahay anu mid baa isweydiiyay dadka xidigiska yaqaana inkastoo dadka qaarkood quraafaad ay u arkaan haddana waa wax jira la dhahaa dadka xidigiska yaqaan waliba Soomaalida hore waxa jirtay xidigyo iyo waqtiyo qofka ku aadama dadku ay kala bit leeyihiin saarahan qofka wuxuu dhashay xilli nasiib xun uu noqonayaa xilli wuxuu dhashay xun ama xidig xun buu ku aadamay ama hadaa mid iyo laba intisaalada ka soo qaaday xidigiska waa laga badayaa
xidigyada hadda heesaha oo kale ama abwaanada ama suugaanta ama markii dadku amaaneen marka la arko naafa dhalad xidiga la dhaha jira oo aan wanaagsanayn saan aaminsanahay xidig kale waxaa jira nuur daalacay la dhaho nuur daalacay ninba u taqaan laakiin nuur daalacay waa xidig neerus la dhaho ayaa jira isaguna oo xidigyada fiican oo la amaane ku jira biyaxaw mid la dhaha jira oo inaad maqashaan baa laga yaabaa inta badan marka xidigyada qaarkood qof waxaa jira hadduu xilli xun oo xidigaas ma ahan xidigaa waa waqti xun buu ku aadan yahay macnaha dadku waa u samadaysnayd waqtigaa qofka dhashay inta badan musiibo meeshuu soo galaba waxa weeyaan qas iyo dhibaato iyo fowdo iyo waxa weeyaan dil iyo qaxar iyo dhibaato maba laga baxaba hoogiba tafadhiig gabar loo bixiyaa jirto hadda gabdho waxa jira mararka qaarkood gabdho raali ahaada raggeena weyley gabdhana weyley qof waxa laga yaabaa gabar baa laga yaabaa reer iska dhaqanaa inay gabar soo guursadaan maqaadirta ilaahay baa hayay laakiin reerkii waxa laga yaabaa in la galo ma garatay tafadhiig war gabadhu ma xilli tafadhiig bay ahayd baa leeyahay nimanka qaarkood laftigooda way jiraano waxa weeyaan iyaguba koosaas waa jiraan marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waaba tafadhiig oo nin awaayo ma garatay marka allaala markuu imaado afarta gees Soomaaliya oo gubanaysa hadda madaxweynihii ka horeeyay farmaajo joogay ma ahan amaan ma ahan dagaalo waa dhacayeen dabcan laakiin dagaaladu waa koobnaayeen xaddigan dagaalada waa ka koobnaayeen madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh ee hore shabeellada hoose waa gubanaysa waxaan xasuusanaa dagaaladii Biyamal iyo Habargidir waa la isku riiqday gaalkacyo kale waa gubanaysa dagaalo mar siyaasadaysan oo galmudug iyo Puntland laga dhigay marna qabiilaysan ayaa ka dhacayay toos u gubanaysa wixii oo dhan hal mar bay xasileeno jawi degan dadka isla qabsadeen waa dhacayeen dagaal laakiin dagaaladan oo kale oo afarta gees Soomaalida dab ay kaga shidan tahay runtii ma dhacayn xaqiiqada fiican hadda markuu madaxweyne xasan sheekh xilka la wareegay labadaas sano gudahood meel walba xabad baa ka dhacaysa meel walba la isku dilaya marka madaxweyne xasan sheekh miyaa tafadhiig asaga xataa hadduu doonayso dagaalada qaarkood wax saameyn oo suluk lahaan waa tafadhiig ma la dhihi karaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud musiibo ayaa daba guuraysa oo wataa ma la dhihi karaa waxa dhacay horta ilaahay awoodiisa ku dhacayaan cilmiga ilaahay ku dhacayaan dadkaana tooda soo gashay inta dhimanaysa inta dhaawacmaysan sidoo kale musiibada iyo qadartu waa wax qoran laakiin madaxweynahan anigu uma bogin filkiis waxba ka khaldan wax ka khaldan quraan hal akhristaan leeyahay Soomaalida inta marka ka imaado dagaalada siyaasadaysan baa aadaya baydhabo weerar baa lagu qaaday sanadii wax yar ka hor lafta green si looga takhaluso beelo raaxweyna la kiciyay waxa weeyaan wasiirka warfaafinta xiligaas Ilyas ayaa iscaasilay dabka la galiyay baydhabo oo magaalo dhowr boqol oo kun ay ku nooshahay oo dad Soomaaliyeed soo barkacay ku nool yihiin dabka laga shiday xukuumadda mujdiid baa ka shidaysay alaan kaanayna ku hayn weyn tahay Itoobiyaanka ciidamada iska saarto inay duulaan kale ku qaado baraawo dagaalo siyaasadaysan baa ka dhacay oo ciidamo magaca military oo talaakiin beesha hawiye ka soo jeeda oo Habargidir u badan iyo sidoo kale ciidamo magaca koonfur galbeed oo talaakiin beesha raaxweyn ah ayaa isgalay ilaa 2 jeer 3 jeer baa la islaayay halka rag baa ku dhintay waa dagaalo siyaasadaysan bixay oo gadaal mar dawladda lagu eedeynay maadaama saraakiil dawladda ay qayb ka ahaayeen garowe waxa ka dhacay dagaal u dhaxeeyay Puntland iyo madaxdii mucaaradka oo muxuu ahaa isbedel doonka ahaa oo daniile meesha ka ridaan rabay dagaalkaas boqolkiiba 99.9 waxa maalgelinayay xukuumadda Soomaaliya magaalada Muqdisho laga maalgelinayay kharashaadka iyo fuluuska iyo waxa baxay iyo dagaalka halkaas ka imaanay dhanka marka la eego mucaaradka SSC Khaatumo iyo sidoo kale Somaliland dagaal ku salaysan murad dhuleed oo ilaa waxa weeyaan 15 sano oo qolana ay sheeganayso anaga xukuumadna xoogida ku xukuumanayay beel baa neema beel xukunta ayaa halka ka qarxay Soomaali badan ayuu noloshooda galaaftay labada dhinacba wixii dhintay gaala ma ahayn dad Soomaaliyeed oo walaalaha bay ahayd laakiin dagaal kasta oo dhaca oo Soomaali dhex mara kulli qolo u baa gardaran reer fulan ama dhul bay doonayaan ay salahayn rabaa inay qabsadaan ama deegaan xogaa soo daga la yiri in isku balaariyaan rabaan waa saas ama reer fulan ama reer hebel qof bay ka dileen qol heblaayo waa sax ama reer fulan ama reer hebel siyaasadooda waxay rabaan inay ku khasbaan iyo waxa ay jecel yihiin qolo kale oo Soomaaliyeed oo la mid ah waa inta wax la isku hayo marka dadka khaldan inta badan waxa leeyahay war hana naar mudanaha adikana has dhibaateena walaalihiina dhibaateena oo adigaagan duulaanka ah adigana waa dhimanaysaa kana waa dilaysaa waxa weeyaan labada jeer banaar baa siyaasatay dulmigana Ilaahay waa u jeedaa marka dulmiga hal iska daayo ma fiicna dagaalo Soomaaliland iyo SSC Khaatumo Soomaaliland sheeganaysa in dawlad madax banaanta 30 sano haystay iyo nimankan daraawishada iyaguna sheeganaya inay maamul gooni yihiin sidaas la isku galay dad badan ayaa noloshooda galaaftay dad badan oo ku dhaarmeen halka dagaal ka dhacay dawladdu lug bay ku lahayd baa dhaha mararka qaarkood waxa weeyaan siyaabo badan baa loogu eedeynayay agajiid iyo waxa weeyaan daacad inay sakaan dagaalka in la joojiyo farmaajo madaxweynaha ka horeeyay ah waxaan iyo wax la mid ah toon dalka maysa dhacay marka xasan sheekh maxamuud maxaan ugu yeernaa
xidigee buu dhashay haddaa xidigaha nagu dhaanto soo qor xidigee buu dhashay madaxweyne xasan leedahay ilaa waxa weeye waxbuu wataaye howl buu wataa madaxweynaha waa howl guuraysa weeyaane maxaa khaldan macnaha ilaahay ummadda Soomaaliyeed waxaan uga baryayaa nabad iyo barwaaqo iyo bashbash dadka colaadda wadan waxa leeyahay war dhulkii Soomaalida iyo baddoodii baa duulaan lagu yahay ninkii inuu dhinta rabay dagaal rabow adeero macaano aan farta iyo Soomaalida isdagaalaysa tag dagaalka qowmiga ah oo qowmiyadda lagu jiro aad kaasa dagaalkaasa kugu waajibay kan Soomaaligan haddii reer Soomaaliyeed la baabi'iyo caaw haddii nimanka waxa weeye ma taqaanaa maanta isdidayaan tusaale uga soo qaato oo labada qolo kamid la tirtiro la waayo oo waxa weeyaan allihii abuurtay u qaato adeero macaano garab baa kugu cilooday population baa weynaysa tol baa weynaysa walaalaha weynaysa dad maanta aad laga yaabo naas ala aragtiyeen oo soo urteen baabiri kamaal waxay noqon doonaan garabkaaga oo maqan marka la isqabto Ethiopian ama Kenyan marka waxba iska dilin haddii isaga kan hadda nool uu ku anficina kan dhabarkiisa ku jira wax ku tari doono oo biri kamaal garabkaaga ka dagaalami doone waxba ha iska dilin walaalka intaasaan leeyahay adna ha isdilin walaalkana ha dilin naarna ha siyaasan hawlaha inta lagu joojiyo dadka dulmiga wadana inta badan iyagu ha joojiyaan fidnada qolo walba oo Soomaaliyeed dagaaladaas ay u dhaceen aanu dhamaantood moodo ogi laakiin qaarkood way ogahay in qolo gardaran iyo qolo laga gardaran yahay oo gardarada ay ka ficilsan rabta sida la isku galay marka dagaaladaas Allah kala qaboojiyo dadka Soomaaliyeed u duceeya Xasan Sheekh Maxamuudna su'aasha hala gaarsiyo madaxweyne maxaa ka khaldan Soomaalidana waxa leeyahay quraan akhrista rabbigeena u noqda ilaahina waxa weeye nabad hadiisiyo wabillahi tawfiiq